been ayaa tahay waan kaaga mahad celinayaa xalay si fiican ayaa ii sharaftay ugu dambeyntiina wax indhaha laga dabaasho waad samaysay dhawaaqa TV-ga haddii aanan ku soo kici lahaynna waan ku ogahay hawshaada hore aad sii wada leed sama waxa doontana waad samayn lahayd war aniga waan kugu daalay waxaan sida aan kaaga celinayo mar walba sawiradan hore xusuuso xun oo noloshaada soo mar mooyaane maxay kale kuu faa'iideynayaanna xasuusi hore ood ku nooshaa waa inaad iska dhaaftaa diif waa inaad nolol cusub samaysataa adiga To help you manage the pain. The same pain that Barbara must have endured. caawa aniga mar kale meeshaan hay keenin haddaba waan kuu digayaa waaw aniga xaaladeeda aadan u fiicanahay aad baan u fiicanahay waxaan kaaga mahadcelinaa maadaama xaaladeeda aad weydiisay
أبو هاي ديفيتي أيا اللي يرهدا هاي meeqaad qaadataan ii sheeg maxaad i dhahday shid oo بليز دhegeysno ha bixin aniga waxaan u maleynayaa moogtaa maxaad u malaynaysa ii sheeg macnaha waxaan ku maleynayaa kuwa internetka macnaha jirkooda lacagaha ugu oo hadda ma waxaad ii qarinaysaa nooc jirkooda ka ganacsada ayaan kuu malaynaya may macnaha dharka aad wadatid markaan arkay waxaan ku dharkan aniga hooyaday ayaa ii soo gaday macnaha nice aadaad ugu nuuraysaa wax yar u kaadiba macnaha gabdhaha dharkiina isaga kaa bixiyaan miyaad lacag ku siisaa oo kuwa saas miyaa jira hadda macnaha waxyaabahaas waa laga soo tegi maaho macnaha u bixin u qabo war iga tagaan ku dhaha fir dhegeys aba shit
xanuunka haddii uu weli jiro waxay ka dhigantaa dhaawacaaga inuusan weli bogsoon xoogaa waxaa loo baahan yahay inaad is ilaaliso stresska badan iska daanaso waaya daawooyin hadda kuu qoraya daawooyinkaas waanaad isticmaashaa ilaa aad ka dhammaynayso oo daawooyinkaas aad ka wada dhammaysanayso is ogow waaya titoore ilaa hadda muusan bogsoon waqti ayuu u baahan yahay iyo daawooyinka in lagu ogaado okay dhegeyso xalay wixii dhacay aadan kaaga raalgelinaa daacadadan kala hadlo ku talgalkayga maysan ahayn marka maxaa kugu dhacay sheeg bal macnaha sanka maa ka hadleeyahay sheekada ayadoo dheer maan kuu sheega mise waa kuu soo gaabiyaa soo gaabi okay amnesia macnaha waxa waaye amnesia macnaheeda waan aqaanaa laakiin sheekadoo dheer ma ii sheegi kartaa mamaya waxyar u kaadiyaa si fiican u fiiri ma aragtaa wax meeshan ku qoran qof dhallinyaraha oo gaariga intii lagu dhufto kadibna laga orday waa waree maxaa runtii xaalad adag waay soo maahan weliba waana wax aan afka laga sheegi karin ahaa runtii laakiin xaaladda noocaasoo kale aad ayaa looga cabsanayaa teeda haddii aan ka hadlana dhimashada runtii aad ayay ii cabsi gelisaa run ahaantii shilkaas aan galay wax aan ka xasuustataa kuu sheego macnaha gaariga laabaay waaw sanjay sangaaniya filinkiisoo kale miya wad maxaa waxaad ku hadlaysid filinka kijinimaa ka wadaa run ahaantii aniga sanjay sangaaniya maba ka heliba taageero u miyey ma fahantay macnaha filimadiis oo dadka maskaxda kuluminaysa iyo xusuusahaas iyo waxyaabahaas shilkaas aniga igu dhacayo isku mid ma ahan wayna kala fog yihiin shilku igu dhacay mooyee wax kale waan xasuustaa dadka lagu tilmaamo sida momento oo kale inay yihiin sida diidni oo kale waa sida maskaxda u fadhiisto sis maaha wad macnaha momento waad aragtay macnaha waad fiirsatay weliba wax badan waana xasuustaa waaw waxay ila tahay filimada inaad aad u badsatay dabcan filimada talaguuga iyo kuwa maraykanka ayaan jeclahay bella waay macnaheyga labadeena haddii facebook friends aa ka noqon ka waran waan ka noqon karnaa hey sug yarta intee aad yaqay shit dbt wow canuga maad soo kicinaysaa wriya canug intoonoo joogay balaayoy Mr. Sangania ma xasuustaa aniga hay sideen kugu ilaabaa hada sidee maxaa inta no maya internetka maxaa please shit
shit ciil badanaa maxaaba inta dadkan shit shit ufo waxaas inaan sameeyo adiga ayaa sabab u ahaa waxaan rajaynayaa hadda cashir inaad ka qaadatay tararararara fiiriya halkan maxaa ku keenay maanta haye ma aragtaana kaba ayaan ku keenay jawdar ayaa la dhahaa kabaan aad ay u qurux badan yihiin ofo waaba iloobi inaan ku siiyo ka waran bal hoo qabso heesahagii aad jecleed oo dhan ayaan kuugu soo shubay deef uma baahna aniga katiinkan inaan xirto si aan aabbaha qalbigayga ugu soo dhaweeyo deef iyo enafya hoo kuwaana ku darsa dhaqso ugu dambeyn aniga jawi degan waan iska galayaa xasiloonina waan helayaa maxaa waaye kan يا ترتيب وهذا maxaa dhacay ما حدا عدقنا يا تاي kaal adiga waqtigaad igu gaaday saamiyaane war waqtigu ma gaada ee filimka raas dialogiis ayaan ku sheegay waahay ka waran way iga hoos baxday dawal aan xaashi ma duusho daruur aan roob ma doo filimkaas magaciisa sheeg tan way iska saalan tahay be filimkii wax waa baati tomar war filimkaas ku faad ka hadlaa shibaa filimkiisa sidaas miya markayga waa markaan yaa hal midaan helay adduunyada sideeda waa inaad jecel jishaa haddii kale waa inaad iska dhimataa filimkii shaaruqan kuji hootahay soo maaha runtaada waay walaalahay meel cidla uguma tagay mar walbana walaalahay garabkayga ayay taagan yihiin runtaada waay macnayga filimkii wax waaye kiino raagaa raamaatu waayno been ayaad sheegtay beenteeda ma aha yaaqsay wax kaa yihiin dialogan wax xasuustaa filimuu ku jiray may filim maaha musalsalka walaalaha waaye hadda mid kale aan ku dhaho fiiri maxaa kaloo heesaana kiran aniga keliya ayaa kule la'aantaadana ma noolaan karo kiran naga daa yaaqay filimadan dadka waalan dialogooda naga daa biliis waayahay fiiri abba dhegeyso inaan baxa waaye waqtigu iga dhammaaday ukaadi iga raali noqo diibtee dhegeyso horta macnaha filimadan dadka waalwaalan aad macnaa madaxa igu xanuunano waxaan ku soo xasuustaa macnaha xaaskii aabbayga uu qabay eedadeeda maxaa waaya haddana weli ma fahmin maxaa ku dhacayda aabbayga markuu geeriyooda kadib ayada xaalad xun ayay gashay way isku dhex yaacday waan ka xumaa runtii hadda sidee tahayna ayada ii sheeg bal caafimaadkeeda hadda way fiican tahay ayada qaladka ee gashay ayay dadka ku eedeysaa taasna waa laguma tilmaamo xariifnimo waaye waayahay mar kale ayaanoo balanay
eedo eedo ma adiga eedo aabe yes yes hay dibtii waxaan rabaa arrin muhiim inaan kuu sheego macnaha waxaan maqlaa cod cajiib ah sida waxay ila noqotaa inaan waa la rabo camal maya adiga qof waa lamatid laakiin filmada horarka ayaad badsatay waa laga yaabaa inaad saxan tahay ahay maxaa waxaas haddane baashaalad ii keenta miya waan ogaa inaad igu shactiraysanaysid maya qidacad ayaan kaala hadlayaa cod ayaan maqlaa aniga naga daayaaqay meeshan dabeel mooye wax kaloo la maqlaya ma leh waayahay u kaadi bal hal mar macnaha sawirkaas gadaasheeda yaala farshaxanka macnaha adiga miyaa sawireen midkeed ka hadlaysaa kaas miyaad ka hadlaysaana aniga ayaa sawireen ma ka heshayna adiga horta makuu sheegin miya aniga ilaa yaraanteeda ayaan aartiska baranayay aartiskana khatar ayaan ku ayaa abaalmarin xitaa waa liigu siiyey ma aqaan wakhtigaas tartanka siduu ahaa
هلو هلو مي مقشان ضيفنا هاي هلو قربنا بهنا هلو مي مقشان يا اخي اسمك المجرى هلو 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 مي مقشا ضيف يلا معنا وحنا بهنا قرب هلو مي مقشا هلو 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 مي مقشا ولاد ما حكى خلدم وقتي شغلان صوب على من ادلسيت ما حكى خلدم سي ما تماتاي هلو 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 يا ابوي هلو 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 يا تاديك magacayga sidaad ku aqoonsatay waan aqaana laakiin yaa tahay macnaha waxaan rabaa garb inaad siiso cabinada kaaga baahanay ma cabi kartaa waxaan rabaa qof inaan arrintiis ogaado ma igu cabi kartaa ها طبعا وكويدير سؤال كويدير فيري قف انت هدنا سيده uga cabsi karaa dhimashada ii sheeg bal macna waxaan ka wada dibadii taawar qoftaas dilaagi fulmun aad dilay Soomaha waan ogaa kiiskaas xitaa askariga dambe baaraha aniga ay garbi wadiistay si fiican ay nolol socdo qoftaas kiiskeeda adiga maxad ku ogtaa ii sheeg bal waxaan rabaa inaan kiiskaas wax ka ogaado walaal waa ku baryaa ma igu caabi kartaana igu caabi maxaabaan waa ku bariya ishak halista maxaaba ishak waaya maxamed laakiinse gabadhan dibiti laayo arrinteed maxaa kasi anigana nasiina iyo mataalo waxaan rabaa inaad i caawiso waa ku baryaa waayahay aan arko qaabkaad iga hor istaagi leedahay معناها جيم مسكحيا ميا أو دكال أتكون دقن سنسيد معناها جيم مسكحيا maxaad ku dama fahmi runta miya deef dhegeyso aniga maan rabin xaaladda sidaas inaan kaaga tago ulajeedkayga ma ahan ka raali noqo waan ka raaligelinaa laakiinse waan ku qasbanaa inaan kaa tago adiga ma fiican tahayna xoogaa qof murugaysan ayaad u eg tahay maya waxba igama qaldano waan fiicanahay been ayaad ii sheegaysaa may dibtii wax igama qaldano waa fiicanahay waxbaad iga qarinaysaa soo maaha
mayma xoogaa yar waan daalanaya wax kale ma jiraan waa maxay wax kaa qaldan ii sheeg adigaa xoogaa welwel igu abuuray wax weyn maaha midaas xishoodkana qalad maaha waa wax loo baahan yahay mar kasto deef biliis mar kale been ha ii sheegin way u adag tahay midaan hello فيري ملا سocota waqtiga ila hadlaysid laakiin aniga ma shaqeeyo magaceeda dibitiyaal lahaa saaxiib macnahaaga caddeen ah ayadaba ma ogaba qofka waan ogahay taas macnahaaga nolol ii geeri maxaad ka waddaa maxaa ku hadloosaaniya maku fahmooye hadday kaarsantaa may dabcan taas raallika ma ihi aniga sideedaba meel dhow ayaan ka arkaa geerida wad filinkaas magaciisa adiga ma taqaanid miyaana filinkaas waxa waaye awaaraa bam daylog filinkaasna wuxuu ahaa geerida meel dhow baan ka arkaa qofna ima cabsi geliyo daylog khatar ayuu ahaa laakiin aniga waqti kasta oon gowgowdaas soo xasuusto waan banaxaa ma ogtahayna runtaada miya okay waay ka waran bal labadiina game isbarashada ciyaarno oo xogteena isku dhaafsano okay waay haye diyaar garoowe 30 sekin oo kaliya haysataa diyaari okay saaxiibka dunida kugu dhow hooyadee waaye cadowgaaga dunida ugu xunna runtii cadow noocaas maba lihi okay xasuustaada qiimaha ku leh oo mar walba xasuusato shimiskii koowaad waaye okay xusuustaada kuugu xumeed tee waayna markay sheeg mar ayaa sakiin iqashay markaan soo xasuustan runtii waan banaxaa okay yaad ka cabsataa amase waxaad ka baqdo keliya inaan jecelkayga mar kale arki waayo waxa ugu weyn oo dunida ka cabsada midaas okay waqtiga waa kugu dhammaad adiga beelo waa isbarasho dhammaystiran waaya waayaha markaaga waa markaan okay diyaaranay soo daa saaxiibka dunida kugu qaalisan laabtoobkayga waa cadowgaaga dunida kugu xun eedadee waa waayahay xusuustaada dunida kugu qiimaha badan aabbey waagaa ku badal ciyaaray waayay wax ama qof aad ka cabsato hey waqtiga waa kugu socdaa maxaa kugu dhaca
isla aabahayga yacni waxa ugu weyn oo iga cabsi geliya geeridiisay ahayd هلو maanta eedadada ayaa i soo baxday يا قرمه lambarkayga waxay ka heshay qolkaaga waxayna rabtay inaan adiga kaala hadlo اوف محابا يا قيسان وايه maxay ku sheegtay marka wax walba ayaa ii sheegtay اوف يا اخي waxaan macquul ma aniga qaasiyiin maxaa ku qasbay markii inay sameeyso waxay igu dhahday waan jeclahay inuu ila joogo ila noolaado laakiin khiiladiisa ayaan aad u dhibsaday raadigiisa laabtoobkiisa wax walba asiga ku saabsan waa dhibsaday madaxa iga galeen اوف ما مسكينta eedadeeda waxaas yaqay macquul ma ahan waxaas maartaa markii ina maanta saaxiibkaaga ayaan la hadlay waa nin akhyaar ah oo aad u degan wax walba anaga nagu saabsanna waan u sheegay okay wax walba u sheegtay miya haa ma xumo waayahe qaabka raadiyay u jibisay iyo weliba aabahayga qaabkaad u dashay maxaa u sheegi weysay waxaan islahaa wuu ku fahmi doonaa balse aniga ayaaba ku fahmi la hadda labadeena sidan ayaa xanuun ugu jiraynaa soo maaha wayba iska caddahay dabcan eedo waa ku baryaa isii daawooyinka eedo kaniiniyaashiisii waa ku baryaa eedo xanuun darana ayahay eedo waa ku baryaa daawooyinkiisii si fiican aad u seexatay soo maaha haa aniga ditoorka ayaa daawadan isii soo maaha adigana baroobay hadda riyo macaan ayaan kuu rajaynayaa nacal deef taagii haa waa aniga laakiin siyaa taha magacaygu waa tabasfii waxaana isbitoori buuxa runtii gacmaaga sida barafkoo kale ayuu qaboban yahay waxaana loo baahan yahay inaad is ilaaliso ood iska taxadirto haddii kale cimri gaabad ayaa ku imaanayo kadibna waad dhimanaysaa haddaadan is ilaalin ood iska taxadirin dhalinyaro ayaa taa waanad is ilaalisaa ma ku dhahay warkayga amitaa bajan ayaa taageertaa miya haa kaartadan aabeyga ii keenay filimada aniga aad iyo aad ayaanu jeclahay waa iska xiiseeyaa aniga yaraanteedii ilaa hadda hal filan ayaan ka jeclahay amitaa bajan filinkaasoo lagu magacaabo sinjeer dadka sharafta leh mar walba markii la dulmiyay waxay yimaadaan saldhigga booliiska markay yimaadaanna way dacwoodaan waa sababta
aan aniga askari u noqday dialogaas ina baxdi maan haa madiin ayaa halkan ii soo diray haa labadiina aqoon nooceniga dhexeysa se isku taqaaniin aqoonna ay idinka dhexeysa maa tire aniga maray hooyaday geeriyootay madiin oo iga raal noqotali aadan ugu xumahay laakiinse aniga maxaad iga rabtaa haddaba 5 gabdhood kale ayaa la dilay kiiskan si aan u xalino waxaa loo baahan yahay inaad igu caawiso sideen kuga caawiyaa waxaan u baahannahay diibtii qofay aad iskugu dhawaayeen qof xiriir ka dhexeeye ama qof asxaabba isku fog ahaayeen ama qof oo xiriir ka dhexeeye aad u jecleed iyada laakiin taas maxay soo kordhinaysaana dadku waxay dhahaan kuwa aadku noogu dhow ayaa haddana na dhaawaca haa laakiin adiga waxaad ii sheegaysaa qof ayada u dhow waxaa loo baahan yahay fikirkayga inaad ku cabirto yaa kaloo dhibaato u geysan karo teleefonkayga dabla-aan oo noqdo waddama fiiri akhe deef haddaadan iga xumaanin teleefonkaaga ma ii dhiibi kartaa waxaan rabaa taliyeyga inaan la hadlo haa laakiinse askariga dambaara ahaa waan u sheegay soomaa shilka markaan gala inuu teleefonkayga dhumay sideen baan ku iloobi karaa dabcan waad ii sheegtay waa ii sheegtay waa saxintahay okay u kaadi ballan ku caabiye hay isagooya aniga kaa sii tegay laakiin deef ogooya marar baan kula soo xiriiraya way buuq badan yihiin fireboy iyo abukar laki isdafaal lahaa diris aad iyo aad u buuq badan waaye geemka xataa ma ka dheli karteed subarshaan markuu geemku leela xataa way ku qasayaan diris noocaas oo kale adiga ma leedahayna macnayga diris saas u buuqayaan ha ka wadano waa sheeko la yaab lehe macnayga diriskaaga codad macnaha aad dhibsanaysa maka maqashid miya miyaw iyo bisad qaylinaysa waxyaalo noocaas waan maqlaa maya sidaas maaha macnaha cod oo dhimasho ah macnaha oo weliweli ah sidee waxu jiraan he si lama filan ayaad ku bilowda arrimaha dariskayga inaad xiisayso maxaa dhaca maya yaaqe sidaas ma ahan been ayaad ii sheegaysaa soo maaha maya aamin yaaqe been kuuma sheegaayo waxyaabaas ma jiraan waxay adiga qarinaysaa maya dibiti wax kaama qarinayo beenlo maya yaaqe beenlo maahi ma waxay kultahay inaan been kuu sheegayo adiga lee hore u dhahno aniga goormee wejigaagano yacni qaabka indhahaaga ay u dhaqdhaqaaqayaan xoogaha afkaaga siduu u waxaysmaayey ilkahaaga goosahaasay bannaanka u soo baxayaan yacni qaabka daamankaaga xitaa sida uu noqonaya waxyaalahaasoo kalean ka fahmaya sawirkaa soo dhigaysa ma xasuusatid miya waan xasuustaa sababaha beenta dhoola caddeen been ayay sababaan maya dibiti waxyaaban sidaad ku ogaatay ii sheeg bal mar ayaad been ii sheegtay mana rabin mar kale inaad been ii sheegto tan kale waan kaaga digay in aad been ii sheegto ukaad baryaa isoo fiiri idhegayso aniga intaad ogtahay in ka badan ayaan kaa helay mana rabin inaan ku dhaho wax adiga ku dhaawacayo hadda ii sheeg bal ma been baan kuu sheegaya shit
hallo hay gacaliyaheeda ama waxay qarsanaysa ma ku maya xoogaa waqti ayaan baana waxaan ka ogaad male maxaa dhacay ma dhibaataa jirtay sheeg war waxaad moodaa qofta qalabka runta iyo beenta sheegaya inuu ku xiran yahay sidaan haddii kusii socdana lagama yaabo mar kale inay ila soo xiriirto waana waaynayaa oo adiga inaad weysi miyaad ka cabsanaysaa qofta ii sheeg bal ha laga yaabee war qofta ruuxaan noocay baa saaxiiba ii sheeg waxaan la yaabanaa ilaa heerkan sababtaad uga war adiganiyo maxaa halow shit war waxaan muxuu isku maleeyaa dulligan nacla kugu yaalleh Dave. Oh shit. Ofo. Dave aniga hadiyada weysiya ayay ahayd ka waran. Reol gacan gale. Ofo. Ay, gacan gale. katiinka ugu sii waaba gadatee hadiyad maxaa ka sheegay hadda ما اديد ما شت ما حسميني سياخي ما اديد بس وكبري اذا سمعني انت ما حسميني هذا حنون كلا هو درين انت سامها استبد يا اخي اسلامتن شيت runtii waxaan ku fikiray aniga markayga waa markaya okay iweydii maxaad adiga eedada sidaas ugu necab tahay runtii su-aashaas ayada inaad weydiisaa ku wanaagsan micnaha aaday kuu dhibtaa miya haddii raadi aniga aan leeyahay inaad jibisid buris aad dhacdid kadibna maalinta xigtana haddaa aybad ii keentid taas haddee dhibtahay waan ogolaah caadi maanan ku dhaca qiso cajiib ee waa runtii waaba sidaad u sheegtay shilka markaan galay wixii ka horeeyay horta aad baan u dhibsi jiray laakiinse hadda nolosheedoo dhan anigayga dhigtay anigayga fikirtaa waxaan raban way samaysaa runtii midaas wax laga xumaado waa aabbaha arrimihiisan iiga waran eedadii ayaa dishay waa waree waqti waxaa jirtay ganacsiga uu aad ugu khasaaro weyn ayaa ka soo gaartay labadoodana mar walba lacag ay isku dagaali jireen qisada waalidiinteedoo kale waaya waxay ahayd dhalashadeeda 10aad aabbeyga aad ayuu u faqiiray hadiyad oo iigada iska daya cuntaa cunno noo waaye anigana aad ayaan u baahnaa waxaan raadinayaa cunto aan cuno markaan jikada gale waxaan ku arkay kabo qaali ah arrintaasi labadooda mar kale isku dagaaleen waaga markuu barye aabbahayga dabaq ayuu iska tuuray xitaa guud baa imuusan dhihin fariin iima reebin warqad xitaa iima qorin runtii waxaan u malaynayaa arrintaas arrinta ugu xun inay tahay may arrin ugu xun ma jirin weligeeda ma jiri doonta haddana ma jirto ilaan aabbeyga maba uusan kala jeclaan hal mar xitaa kama uusan fikirin asiga in uu ifku u joogo wiil nolosha kaga dayanayo taas xaggiisa waxba kama ahayn arrimahaygana kama fikirin deef laakiin hadda anigaa kaa fikiraya
maxaa rabtaana magaca ma heshaynaa maya waqti ayaan u baahanahay war anaga waqti ma hayno iyo saacad dib baan ugu celino iyo qofka dhibka ku jira noloshiisa war aniga culayskan maxaad ii saaraysaa askarta kale maxay qabanayaan marka maxaa dhacay askarta kale maxay qabanayaan waxaa laga yaabaa inay wax ka hoos baxayaan may ma waxaad moodaa askarta inay meel iska fadhiyaan sidaad oo kale aysan shaqaynaynin war aniga maxaad iga rabtaana maxaa waxaad iga damacsan tahay magaca inaad ka ogaato oo keliya ayaan kaa rabaa waa intaas war arrinta sidaas hadday u sahlan tahay kii ruuxaamaha la hadli jire maa dhahdid ka soo ogow markaas waxaa lagu qasbanaanayaa inay dhimatay in loo sheego haye maxaad ka leedahay maxaa rabtaan iyo faraa iga qaad war ma waxaad doonaysaa sida diibtii u dhimato oo kale gabdhaha kalena sidaas u dhinto taas raalli ka miyi dabcan inay dhacdo ma rabi haddaba waaye magaciisa ogo saaxiib deef adiga haddana siina ayaad u baahan tahay mideeda kale fiiri bal taleefon cusub ayaan kuu soo iibiyey hoo waxaan ku fikiray mararka qaar fariin leh inaad ii soo dirtid maxaa yeelay badanaa anigii adiga waan isku dhacnaa waana kala aamusnaa soo ma ahana haye haddaba habeen wanaagsan yaa joy yuu yahay ii sheeg runtii arrintaas midaan hadda kuu sheegi kara maahan sabab waxaan u malaynayaa ayada inuu xiriir un kala dhexeeyo ii sheeg isbitaalka basfi ayaa igu dhaariyay inaan qof la wadaagna arrintan ma xumo waxaad ku dhahdaa dilaag adiga raadso ogaadi dhibanaha waxay ay xadneed gabal la yidhaahdo joyred markaas boolisku waxay u malaynayeen in qofta la dhacay laakiin boolisku waa ay khaldanaayeen gadaalay waxay ka ogaadeen daliil isxigxigay inuu yahay dilkan waaye maxaa sir looga dhigay ii sheeg taasi wax weyn maahan waxaa loo baahan yahay hadda dadkaas inaan badbaadino maxaa yeelay fuulmuunku uu soo dhow yahay runtii hadda waxaa ila wanaagsan inaad runta u sheegto aniga xitaa sidaas ay la tahay hadday wax soo ogaatay la soo hadal dibiti waxaan rabaa inaan wax kuu sheego waxyaabahaasna waxaad jeclaysanaysa maaha taas macnaheedu xitaa adigina waad ogaatay macnaha maba ogeynba adiga inaad ogtaa eygaas doofaarka bituul dhow mar kale ayuu facebook wax xun soo dhig maahano bituul ah ahaa macnaha ninkaa dhehayso maambeenoo ii sheegay doofaarkaas xunka abiis maadaamuu taajir ya wax walba inuu samayn karo isku maleeyaa fiiri adiga moo dhibaato ku geystane taas hadda wax ma soo kordhinayso anigay wax ii soo kordhinaysaa naga daayaaqe arrintaas adiga waxba kama qaban kartid micnaha sharciga xitaa waxba kama qaban karo marka inaa iska dayna wanaagsan iska daa sharciga cid ka sareysa ma lahan laakiin bituul wuu ka sareeyaa bidu ogaadi bal adiga maxay sidaas kula tahayna sababtoo aabiis ayaaba sharciga ah bidul deshwaal mayer jeshwaal wiilkiisa miya ahaa ninka xukunka rido
shit bidul waan helay yaa dashayna waxaan helay joy maxaad ka wadaa bidul mayer jashwaal wiilkiisa sidee ku ogaatay dibdiimaa kuu sheegtay ahaa xiriir ayaa ka dhexeeyey weliba aad iyo aad ayay uga heshay kadibna asiga xun ayuu ula dhaqmay taasi waxbay miyaa marka lamaana way isdagaalaan maalmahana sidaas way dhacdaa laakiinse asiga dembiye kale waaweyn ayuu galay dembiyo sidee ahne warniya waqti maxaad iga luminaysaa ii sheeg niyow si fiican dhegeys facebookgiisaa jabsaday waxaan ogaaday baasweerkiisa lucifer inuu yahay lucifer macnaheedu mataqaanaa waa shaydaanka dilaaga ah dhiigyacabka ah maxay ka dhigan tahay taas warniya waa kaa yaabay waxaad rabta miyaad iskula dhufsanaysaa mayaqay waxa ku hadlaysa wax ka jiraa ma anigaa ogaaday dilaaga waa asiga taasi ma hubtaa waan ogahan ku dhahay waan ogahay bes warniya waan kaa sii tegayaa war gabadha asiga ayaa weeraray yaa maxaad ku hadlaysaa haa arrintan in aniga kuu sheegay booliska u sheegin maxaa dhacayna iga ballan qaad horta inaad arrintan boolisku sheegin mar kale inaan barbalem gala ma rabo maxaa waay booliska dee arrimahaaga ogaadaan barbalemka aad gelayso aniga hadda ka hor waxaan jabsaday kombyuutar bangiga ayaan jabsaday macnahayga inaan lacag ka xada ma rabin yaa keliya waxaan rabay inaan ogaado inaan jabsan kara in kale saas leba waad faraxsan tahay haa haye bidu arrimihiis wax iiga sheeg bal hadda waxaan fiiri kiisaska saldhigga booliska yaalaan waxaa jira kiis aad u xun kiiskaasna kama sheekay kari asiga ayaa lagu qabtay maxaa waay maxaasna dhacay sheeg macnaheegu wax waay dadka oo macnaa dumarka ku waalan oo aad ugu xun yacni kiis noocaas oo kale ayaa hore looga qabtay kadib maxaa dhacay sheeg booliska awood ayuu isticmaalay maadaama uu yahay ninka ugu taajirsan magaalada aabbihiisa runtii arrintaas waa arrin aad iyo aad xisaas u ah anigana waxaan ku khasbanay inaan la socodsiiyo dembi baaraha okay waaya dave shaqo wanaagsan aa qabatay yes haye mala qabtay dhahay oo keliya
ninka xabsiga ku jira bliis deef horta ma taqaanaa meeqa sac waaye bliis waa ku baryaa ii sheeg war ninkaas ma joogin liibiya ayuu ku maqnaa wax dembina ma lahan shit aan qiyaasa bal yacni aabiis wuxuu dhahay soo maaha haweenkaas labadeenna waan wada joognay waxaas waa maalaa yacni maxaad baaritaan uga samey weyseen gurigiisa u tagi weyseen waxaa laga yaabaa kabta maqan xaggiisa in laga helo ee gurigiisa taalo ya maxaad tidhahdee kabta maqan haa kabta maqan adiga kabta maqan maad tidhahda si fiican iskaga hubi bal haa yacni kabta bidix way ka maqneed soo maaha dibitii markii la dilaa iyada keliya maan gabdho fara badan oo la dilay sidaas oo kale kabta bidix bay ka maqneed deef sidee ku ogaatay adiga sidee ku ogaatay kabtaas maqneed ii sheeg deef adile ma ii sheeginoo maya waxaan kuu sheegay gabdhaha la dilo oo idil inay xirnay kaba joodhad la yidhaahdo haddaba joornaalkan ka akhriyay maxaa dhacay maya arrintaas booliska sir ayay u ahayd annaga oo keliya ayaa isla ogeen cid kaloo ka warhaysana ma jirto adiga sidee ku ogaatay ii sheeg maxasuustaada ayaa dib u soo laabatay ii sheeg mise waad jilaysay inay maskaxdaada luntay sida filinka kijiniya oo kale ood hore maskaxdiisa lumayso ila hadal deef maxaad la aamusan tahay ii jawaab yaakhay waan ogaadeenoo sidee ku ogaatay haddaba shilka gaariga xaggee ku gashay micnaha gaariga doosha kugu siiyey habeyga ku nuun sabab haddaba meydka dibtii isla meeshaas meel in yar u jirta ayaa laga helay runtaada miya isla habeenkii ah aha isku soo biig mid fiican ma la dhihi karaana ninka daliilkan geysanayay daa ahaan 18 jir ilaa 35 jir ayuu u dhexeeyey adigana da-aadaas ayaad hadda ku jirtaa soo sax maan deef wax maad soo xasuusatay laakiin ma waxay kula tahay adiga aha ii sheeg sidee ku ogaatay kabta bidix inay ka maqnayd gabdhihii la dilay hadda ayaan fahmay mar walba eedadaa waxaad ku eedaysaa dilka aabbahaaga xanaaqaad u qabta eedadaada ayaa gabar walba kaba noocaas fudulto intaa u disho ayaad ka soo siibi jirta kabihii ay xirnaayeen sida kabaha eedadaada ay wadan jirta oo kale waxaadna isku dayaysa inaad ka baxsato mayma sidaas ma baabuur inuu jog ku siiya aad iska dhigtay si aad kiiskan uga baxsato gabdhahaas masaakiintana adigaa jirjira oona dila soomaan sidoo kalena dibtii adigaa dili sax waxyaabaas ma samey kari deef waxaas ma sameynin maskiina taa weligaa dembi galin wuxuu ku hadlaya waa maalaa yacni
filinka la yidhaahdo Scablan asiga hataa waa filin cajiib ah markaad rabto inaad baxsato meel aad fikir iyo qorshe kaliya baad ka heli karto waa Soomaan hadda maxaa dhacayna may wax ma dhicin kaliya cadaam yar ayaan helnay waxay ila tahay hadda GPS-yada inaan isku qasno oo aan isdhaafsano adiga marka hore waxaa ratay taleefankayga oo keliya been ayaad ii sheegtay taleefankaaga ma dabdhicin ops waad ii qabatay ah dabcan waa lii sheegay inaad tahay qof aad iyo aad u caqli badan maya ila ma aha sidaas haddaba uma malaynaya inaan ka walwalaya inaad adiga magaalada ka baxsanaysid okay waa sii baxayaa dee ma bixisaana ha ooshan u imaada waan qabsaday Soomaan waan baxayaa ha aabay horta aabay to ka baxay aabay ha qabsa kaarkan haddii aad wax soo xasuusato ila soo xiriir okay waan kaa sii tegayaa isugu adiga mac salaama هالو حاجاتكم مقنطة ايش يقبل inaad ila sheekaysato kuma habboonin adiga لكن سيدي ما حدكو كنتي aniga qof wanaagsan maahi waxyaabo aad xun ayaan sameeyey ما حد سميسي يعني عبادة ما دي haddii aan kuu sheego waxaan sameeyey sidan uma dhowl caddaynaysid adhow هذا بإيشي كي مركا ma awoodo taas dhibaato ma lahan waad igu kalsoonaan kartaa waa aniga qofka kalsoonida aana mudnayn runtii adiga qof wanaagsan ayaa tahay wax walbood samaysayna wax xun inay wada noqdaan wax dhici kara ma ahan runtii saa isdhahaayo weligaa ma maqashay xayawaankii dila quruxda haa haddaba waa aniga xayawaankaas quruxda dilay qof xun ayaan ahay may ma tihid waan ahay qof xun waan ahay shaydaan weyn ayaan ahay shaashada idinkaga muuqda booliska ayaa soo bandhigay waa kuwii uu dilay dilaagii full moon killer ay saxaafadda ugu magac dartay gabdhahan hadda aad arkaysaan waa kuwii ugu dambeeyey ee aan sawiradoodii idiin soo bandhignay waana kuwa haatan ay sheegeen booliska in ay ku maqan yihiin gacanta full moon killer masaakiin sida u yaryar yihiin fiiriya markaan arko qalbiga ayaa bii xanuunaya aniga
noloshan sidan miyay u xun tahay wax la dilaayo leh miyaan u joogeynaa